diniska kala duwan iyo sharikadaha iyo jaamacadaha kale diniska ka jooga iyo dhammaan ardada soo bandhigi doonto barnaamijkan waxaan leeyahay dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkan hadda aan isugu nimid ee aqoon isweydaarsiga ah ee shirkan waxaan aad ugu faraxsanahay inay jaamacadda Soomaaliya ku guuleysatay inay noqoto jaamacadda ugu horeysay ee qabata sharci cilmiyeed looga hadlayo computing and engineering waana kii ugu horeeyay ee dalka ka dhaca waxaan aad ugu mahadcelinayaa kulliyadda soo abaabushay iyo tiimkii arrintaas ku lug lahaa oo ugu horeeyo walaalkay macallinkayga Dr. Cabdullaahi Shariif waxaan leeyahay aad u mahadsan tahay haddii aan soo guda galo programka hadda aan halkan u istaagay aan rabo inaan idinla wadaago rasajyada aan sameeyay noloshayda waa rasajka ugu qaalisan aan ku jeclaystay inaan jaamacadda Soomaaliya ku sharfo waana rasajkii aan muddo soo waday xaqiiqdii dareenkaas waxaa iga keensatay jaamacadda oo aan muddo 4 sano iyo bar aan ka shaqeeyo waana ku faraxsanahay inay qaadato doorkaas jaamacadda Soomaaliya researchkaygan wuxuu ku saabsan yahay cilmi cusub oo adduunka ku soo kordhay 1999 horumaray cilmigaas 2006 ilaa 2007 cilmigaas waxaa loo yaqaanaa cloud computing cloud si aadan ugu wareerin waa daruurta computingna waa cilmiga computerka oo cilmiyo kala duwan isugu jira oo la qaaday oo hawada la geeyay oo internetka dhexdiisa la geeyay sida loo adeegsado sida loo isticmaalo sida loo adapt gareeyo ayaan ka fikiray cilmigaas oo xilligaas soo baxay oo sida aan tilmaamay ayaa waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago gaar ahaan waxaan raadiyay case study ku habboon waxaan isdhahay jaamacadaha Soomaaliya aad ugu habboon inay ka faa'iideystaan cloud computing kaas marka sida loo adapt gareyn karo ay jaamacaduhu uga faa'iideysan karaan cilmigaas cusub oo adduunka ku soo kordhay ayaan ugu talagalay researchkan inaan idin la wadaago qaybo aad u tiro badan ayuu ka koobnaanaya walow aan aad ugu dadaali doono inaan aad u soo koobo anigoo og waqtiga muhiimadiisa kuna xisaabtami doono su-aasha ugu horeyso aniga aan isweydiiyey waxay ahayd qaybaha kala duwan ee aniga aan ka hadli doono marka laga tago waxaan isweydiiyey su-aal researchkan adiga aad samaynaysid ma yahay mid muhiima yuuse wax u tara jawaabta ii soo baxday waxay ahayd factorieska kala duwan ee saameynta ku leh marka la adapt gareynayo cloud computingka waxaa aad muhiim u ah cidda ugu habboon inay aad uga faa'iideysto waxaan u aqoonsaday inay yihiin jaamacadaha marka sida ugu habboon ay uga faa'iideysan karaan researchkan waa waxaan raadinayay practical haddaan fiirinayo iyo framework ahaan haddii aan fiirinaba su-aasha muhiimka marka waxay tahay rasajyadan hore ma loo sameeyey waxaa aad mudan inaan uga jawaabo waxaa aad u tiro badan rasajyada ku saabsan small and medium sized enterprises sharikadaha iyo siday uga faa'iideysan karaan cilmigan cusub aad ayaa looga hadlay laakiin in laga hadlo dhinaca jaamacadaha weli aad ayuu u kooban yahay marka gaar ahaan markaan ka hadalno asbaabta keeni karta jaamacaduhu inay u guuraan cloud computing inay u guuraan oo wax badan oo faa'iido u leh sidaan ku arki doono researchka intaan ku wado haddaba however none of the available studies oo ka hadlay ma jiro researchyada ka hadlaya arrimaha cloud computing kuwa yar yihiin haddana waxaa sii yar kuwa waxbarashada ka hadlaya haddana waxaaba sii yar oo zero ahaa ugu badnaan 2 bilood ka hor wax research oo Soomaaliya laga qoray oo cloud computing ma jirin waxaa jiro oo kaliya aniga oo researchkan qoray iyo 2 qof kale oo researchkan ayaguna wax ka qoreen oo cloud adoption ka hadleen oo dalka nagula sugan marka su-aasha ugu weyn oo ka jawaabay wax weeyaan how higher education u adapt gareyn karaan cloud computing sidaas ay ahayd waana su-aasha ugu dambaysa ku galgabeyn doona jawaabteeda hadafkayga marka wuxuu ahaa in frameworkaas aan ka hadalno iyo sida ugu habboon ee jaamacaduhu uga faa'iideysan karaan gaar ahaan waxaan ka hadlayaa dhinaca teknolojiyadda maxay tahay asbaabta ugu waaweyn ee keeni karta ama xadidi karto cloudka in la adapt gareeyo gaar ahaan jaamacadaha organizational factors ma jiraan asbaab waaweyn ee jaamacadaha ku kalifayo ama u riixayo inay aadaan dhinaca cloud computing waxaan isweydiin doonaa sidoo kale environmentalka meeshaan u guurin aan leenahay waa cloud sidaad ogtahay waa providers waaweyn ee adduunka sharikadaha waaweyn ah ayaan u guuraynaa ayagu ma yihiin kuwa nagu caawin kara inaan cloudkaas adapt gareyno ma jiraan asbaab waaweyn oo ayaga dhinacooda oo annagu ay nagu saameynayaan gunaanadku waxaan ku gabagabayn doonaa strategy aan u arka inay muhiim tahay oo ah jaamacaduhu inay raacaan intaanan loo guurin cloud computing waxaa jira shuruudo dhowr step oo mudan in la qaado ilaa 5 step jira 5taas step oo idin la wadaagi doonaa marka ugu horeysay oo researchka aan bilaabay inaan raadiyo waxaan ku guuleystay muddo dheer kadib ugu yaraan 3 sano iyo xoogaa waxaan raadinay cloud computing iyo haboonaanshihiisa iyo factorieska iyo waxyaabahaas marka waxa ii soo baxday result ah waxaa jiro 19 factor ama 19 sabab oo keeni karta in loo guuro cloud computing 19 kaas asbaab ayaan idin la wadaagayaa
أسباب تكون وين أجرا قار وحويان وتكنولوجيكال أسباب تكنولوجيا عصب وحكو سابسن أسباب organizational إلى سدح فاكتورة كلنا وكلات providers كلو جوراي إنه عوض أيجنا وحاجر أسباب إلى تضبط marka haddaan isu geyso waa 19 factor sida aan ku arki doono aadan u soo koobaya factors kaasoo idil waxay ku wada hoos ururayaan laba theory oo hore u jiray dunida theory la yiraahdo TOE ama technology organization environment midda labaad oo la yiraahdo diffusion of innovation theory waa laba theory oo waa hore jiray oo muddo hore la soo saaray labada theory ayaa lagu saleeyay maadaama wax kasta oo la sameeyo factors ay qasab tahay in theory ka horeeyo lagu sameeyo marka labada theory ayaa lagu saleeyay xagga rasajada aan ku guuleystay inaan helo afar rasaj ugu muhiimsan afarta rasaj oo literature ay ahayd afartan ay ahaayeen laakiin aad ay uga badnaayeen laakiin afartan waa afarta ugu focus ka saaran dhinacan waxa ugu horeeyo midka ugu horeeyo sida aad arkaysan waa Jomo Kenyatta University sameeyeen midda ku xigta waa South Western Nigeria laga sameeyay midda ku xigta waa Sultanate of Oman laga sameeyay midda u dambeysana waxa sameeyay researchers sida meesha idin kaga cadba labada theory tilmaamaysi aragtiyaas aad u aragtaan TOE wuxuu ku base garaysan yahay saddexdan theory ama technological organizational iyo external task ay ku tiirsan yahay haddii aan aanu DOE asagana saddex factor kale ama saddex group kale ay ku tiirsan yahay marba inaan jaanis idin kaga qaado halkan markaad imaataan waxaad ku arkaysaan rasajadii hore loo sameeyay iyo kan waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin there is no general agreement on the factors that influence the adoption of cloud computing ma jiro ilaa hadda heshiis ama wax la isku waafaqsan yahay oo jaamacadda la leeyahay nidaamkan raac markaad raacdo waxaad ku tagaysaa cloud computing inaad adapt garayso si effectively adduunka iskuma waafaqsan dal kasta wuxuu u sameystaa siyaasadiisa marka waan ku faraxsanahay inaan jaamacadaheena dalka u sameeyo istiraatiijiyadii ay mari lahaayeen si ay cloud computing uga faa'iideysan aysan ugu dhicin dhibaatada laga yaabo inay uga imaado 19 factor haday aan tilmaamay waxay ahaayeen 19 meesha nooga muuqata jaanis iyo awood midna uma leeyahay wada akhriyo 9 factor ugu horeeya waa technology hadii laga fiiriyo organizationalka waa qaybta dhexe waa hay'adda jaamacadda waxyaabaha factorska muhiimka ah kamid ah jaamacadda markasta ay weynaato waxay ku sii qasbanaaneen inay isticmaasho cloud computing way ku sii qasbanaaneen managementiga markasta uu taageero in cloud kala adapt gareeyo waa qasab markasta ay soo bataan cloud provisional availability waa markasta oo loo sii dhawaado dhinaca cloud in la adapt gareeyo dhinaca sharikadaha waxyaabaha annaga mudan in iska fiirin waxa kamid ah service level agreement wax leeyahay oo ah heshiiska jaamacaddan iyo sharikadaha shisheeye heshiiska dhexmaraayo jaamacadaha iyo sharikadaha waaweyn ee Google-ka iyo Microsoft iyo Amazon-ka ee cloud providers-ka waa inuu na dhexmaro heshiiskaas waxa loo yaqaanaa service level agreement asaguna saameyntiisu leeyahay factors-kaas kala duwan ayaa jira oo 19 factors research-ka markaan sameeyay waxa loo kala qaybiyaa research sida taqaanidba qualitative iyo quantitative iyo mixed method waxaan doortay mixed method-ka maxaa yeelay waxaan u gartay inuu yahay in la kulmo dhammaan maamulayaasha jaamacadaha ilaa ugu yaraan waxaan is aragnay 5 maamule oo jaamacadeed waxaan is aragnay 5 iyo 10 jaamacadood ka shaqeeya marka qualitative waxaan sameeyay interview quantitative kan waxaan sameeyay questionnaire kadibna waa isku darnay result sax ah si oo noogu soo baxo haddii loo qaybiyo research-ka dhinaca design-ka waxa loo qaybiyaa 3 explanatory iyo descriptive iyo explanatory ayaa wuxuu noqday midka aan select gareynin maxaa yeelay cloud computing hore looma yaqaan sidaa daraaddeed it must be explored first kadibna descriptive in la helo qasab labada hore waxay yihiin selected-ka haddii aad timaadid halkan waxaad ku arkaysaa waxaa qasab in literature review la sameeyo primary data marka imaanada waxaa qasab interview iyo questionnaire labadaas aniga select gareey maxaa yeelay waxaan arkaa inaan la garanay sidaa daraaddeed waa in la interview gareeya go'aana ka dhalanaya dadka maamulayaasha in hal loo wareysta qasab ee questionnaire kaliya kuma filnayn jaamacadihii aan isweydiinay oo interview aan la yeelanay waxaa kamid ahaa jaamacadaha shanta ee halkan ku xusan iyo column-ka labaad oo noogu qoran yahay cidda mas'uulka ka ah iyo interviews-ka lala yeeshay haddii aad aragtaan page-kan waxaad ku arkaysaa objectives-ka research-ka laga lahaa oo ah afarta objective ee dhinaca shishe idinkaga muuqata qaybta dhexe waxaan ku qoray su'aalaha mudan in la weydiiyo ama la weydiiyay dadka interviewees-ka su'aalihii la weydiiyay dhexdeeda ku qoran yihiin intana waxaa ku qoran su'aalahaas ma su'aalo maxamed uu keensadaa mise waa su'aalo international su'aalaha waxaad arkaysaan waxay leeyihiin references dadkaana hore u sameeyay natiijadan oo kale laakiin marka laga reebo paragraph-ka ugu horeeya ama hadafkaas inaan xaqiijiyo waxa u qaabilsanahay aniga kaliya haddaan aadno dhinaca quantitative-ka waxaa noo qoran jaamacadihii aan wareysanay jaamacadihii aan questionnaire-ka u qaybinay macallimiintooda maamulkooda dadka ICT-ga ka shaqeeya dadka technology-ga fahmi kara jaamacadahaasi ahaayeen 15 jaamacadood meesha ka arkeen jaamacad kastana waxaan ka qaaday 10 waraaqaha aan ku qaybiyana xaafadda iyo yaala dhamaantood haddii aad timaadid responses-ka dadka ka soo jawaabay research-kan haddii la fiiriyo waxay ahaayeen percentage 81.4%
percent boqolkiiba 81.4 ayaa waxay ahayn value responses jawaabaha saxda ah ee mudan in la adeegsado ama la isticmaalo qaybta yaroo shishe aad jaanis uma hayno inaan hore idin wado ayaan ku talinaya quantitative haddii aan aadno interviewga la weydiiyey dadka iyo qaababkii kala duwanaa iyo questionska iyo su'aal kasta iyo inta qaybood ay ka koobnay questionnaire ka wada qaybta hore kala daafiyay 10 qodob waaye procedure-ka iskale kan kale waxa waaye 9 haddii aad hore u sii wadaan marka waxaad arkaysaa questionnaire-ka iyo waxyaabihii soo baxay haddaa fiirisaan cilmigan waa cilmi aad u ballaaran researchku qofka PhD ha qaato 2 PhD ha qaato 3 ha qaato weligiisa ma dhamaado waxaan ku sii dhawaanayaa gabagabada qualitative waxaa la isticmaalay markii la analyze gareynayo nidaam la yiraahdo thematic analysis waana mid kamid ah waxyaabaha ugu caansan ee la isticmaalo qaybta quantitative-ka haddii aan aadno waxaan isticmaalnay SPSS ayaan xogta ku xareynay dabadeedna waxaan isla gaarnay inaan si analyze gareyno research-ka ugu dambeeyay research uu dhalay waxa weeyaan hypothesis-kii hore la sameeyay waxa ka dhashay inay factories-ku ay yihiin factories muhiim ah oo jaamacadaha dalkeena saameyn ku leh qaar kamid ah factories-kaas waxay ahaayeen kuwa aan saameyn ku lahayn hadda jaanis uma aha inaan dul istaago halkan waxaan ku tilmaamay factor kasta oo aniga aan tilmaamay oo researcher kale uu sameeyay aniga asaga ma kala duwannahay mise waa isku raacsannahay qaybta discussion-ka waxaan u arkay qayb muhiim ah halkaan ay ku cadahay factor kasta oo aniga aan tilmaamay jaamacadaha inay muhiim u tahay jaamacadaha kale ayaduna ma sheegeen inay muhiim u tahay may misaha halkan waxaan ku qoray qayb kamid ah discussion-ka halkana waxaan geeyay qayb kamid ah discussion-ka maadaama factories-ku ay badan yihiin halkana waxaan kusoo gabagabeeyay factories-ka gaarka ee dalkeena gaarka ah marka waxaa kamid ah speed of the available internet-ka weli wadankeena aad u weyn yahay annagana waxaan rabnaa wax kasta in shisheeyo ama markii providers-ka la aadayo internet-ku waa daruuri takalena electrical-ku weli waxaa ka jiro caqabado ayaduna waxay ahayn factor annaga dalkeena gaar u ah haddii ay jaamacadaha doortaan ay rabaan inay maraan ama ay qaataan nidaamka cloud computing-ku oo dhaqaale ahaan wax badan u fiican waxaa loo baahan yahay 5 step inay maraan waa meesha ugu muhiimsanayd step-ka ugu horeeya waa xog badan in laga ururiyo cloud-ka ka labaad waxa waaye in la sameeyo strategic preparation in loo yeero dad khubaraha kadibna ay dejiyaan istiraatiijiyadda kadibna waxaan aadaynaa analyzing-ka oo ah inaan fahanno solutions-ka aan ka faa'iideysan karno maxay yihiin oo ah solutions aad muhiim u ah dhinaca lab-ka dhinaca waxbarashada dhinaca examination-ka dhinaca finance-ga kulli waxaa martigelinayo providers naga waaweyn inay naga fiican yihiin ay u badan tahay ugu dambeyn waxa waa implementation-ka in la galo cilmiga la isticmaalo la adeegsado implementation kadib waxaan u baahanaynaa post implementation ama inaan tijaabino maintenance garayno waxyaabaha laga yaabo inay soo kordhaan ugu dambeyn waxaan ku talin lahaa qodobka ugu horeeya ku waaninayaa jaamacadaha dalkeena ku yaallo inay si dhaba ugu guuraan IT services-kooda dhinaca cloud computing-ku ayagoo maray istiraatiijiyadaas degan oo uusan degdeg ku jirin qodobka labaad waxaan ku talinayaa in jaamacadaha dalkeena ku yaallo dadkooda awoodda leh inay bilaabaan inay adapt gareeyaan ayna ku bilaabaan daatooyinka iyo xogta inay internet-ka geeyaan sida hadda aan bilaabanayba website-yadeena jaamacadda Soomaaliya ay kamid tahay jaamacadaha bilaaba inay adapt gareeyaan cloud computing-ku waa tan ay isticmaalayaan information system-ka marka asaguna hawada ayuu saarayaan ta kale oo aan ku talinaya waxa weeyaan in la is-aamino dunidu aad uma badna in aad loo taxadaro trustigu weli ziyaado maaha laakiin waxaan ku talinayaa inay wasaaradaha hay'adaha jaamacadaha ku shaqo leh arrintan inay ka soo saaraan nidaam maxaa yeelay cyber crime dunida ka dhici kara in la iska ilaaliyana waa loo baahan yahay talada ugu dambaysa waxaan u jeedi lahaa mas'uuliyiinta halkan nala joogi karta in dalkeena looga faa'iideeyo arrimaha jira ee cloud computing-ka ah oo aan jaaniskaasi laga dayicin in loo guuran waxay la tahay arrin muhiim ah ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa maamulka jaamacadda Soomaaliya maamulka kulliyadda oo soo abaabulay shirkan cilmiyeed وانا آد ميدا بقول وادنيو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله